xaflad ballaaran oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Happy Marriage Academy oo dhalinyaro casharo ka qaadatay isla markaana si weyn wax uga bartay hay-addaasi ayaa waxaa lagu guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan iyadoo xafladaasina ay ka qayb galeen dad caan ka ah jaaliyadda dhexdeeda haddaba hadaladii kala duwanaa ee munaasabadaasi laga jeediyey ayaa waxa ay u dhacday sida tan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan idin imanay inaan idinla joogno waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arkayo wajiyo qurux badan rag iyo dumarba leh dhalinyaro iyo maaragtay waalid iyo waayeelba leh runtii u soo baxay oo u yimiday in ay la wadaagaan walaalahood dareen ay qabaan iyo wax ay arkayaan ay jecel yihiin in ay ummadda gaarsiiyaan waxa isku imaanaya laba qof oo kala duwan labada qof ee kala duwan ma ogtihiin mid un baa fiican soo maaha mid un baa labada fiican iskuma dhigmayaan laakiin ka fiican waxa la rabaa inuu kan kale saro jiido uu keeno meeshiisa soo maaha lagana waxaan sameynaa waa la degnaa qofka fiican baa la degnaa oo kii maaragtay xoogaa dabeecadiisu liidatay ayaa la degaa waxaan u malaynayaa arinta guurka iyo qoyska iyo habka loo dhaqdo inaan kulligeen qofka xitaa aanan khibrad badan u lahayn oo wax badan ka ogyahay haddana sidaasay tahay waxaa wax badan mujtamaceena ama bulshadeena inkastoon yarnahay dad muslimiina nahay haddana dad aada iskugu naxariista aan nahay aan caan ku nahay dad isu gargaaro isu naxariisto isku qalbifiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa salaan sharaf qadarin iyo qiimeyn ku laantayga guddooma run ahaantii waxaan isugu munaasabad qiimo badan munaasabad xalaala xaflad baynu maqli jirnay waa xaflad xalaal waayo dantaynu ka hadlaynaa wixii aasaaska ahaa baynu ka hadlaynaa mid siyaasadeed iyo mid durbaan iyo mid balaayajini iyo mid maamul goboleed iyo mid waxaas baan nawaalay moogta waliba aniga waxay kala qaybsaday xaflad yar iyo caynkan iyo dowlad goboleed yar iyo barnaamij yar iyo caynka wada yar oo wada imtixaanaho meel alaal meel ka socdo iyo meel u socdo oo markaan xisaabiyo meel alaal aanan garanayn laakiin meelaha ugu dardaran oo burburku ka jiro inkastoo jiraan qoysas badan oo xasiloon oo xarig ilaahay haysta oo hooyadii iyo aabihiiba isgarab taagan yihiin laakiin meelaha badan oo burbur ka jiro bulshadeenna qoyska way jiraan in xal loo raadiyo oo la tusaaleeyo oo lala taliyana runtii waa fikradan aad u soo dhaweynayo haddii aad fiirisid waxbarashada oo aan muddo badan ku dhex jiray carruurta iyo waxbarashadooda in badan baan la socday axmed iyo hibo barnaamijkooda aniga laftigaya shakhsi ahaan ayaa wax fara badan ka faa'iido waxaan islahaa 20 sano haddaad xaas lahayd waxba kuuma harinoo casharo badan baa lagu dhigo wax badan baad garanaysaa laakiin xaqiiqatan markaan dhageystay hibo hadlaysa muddo hadda 3 bilood laga joogo waxaan ogaaday wax fara badan oo aanan ogeyn inaan maaragtay ay ii kordheen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga ka abaalmariyo mowduuc loo baahnaa oo burburka qoysaska kaliya maahan bal dadka is haysto is jecelo isla jooga xataa inay muraayada isku fiirshaan ayada laftigeedu wax weyn ayay maaragtay ka bedelaysaa qof baa ma faanta leedahay bishaaro ku siiraya holidaygaagu ku go'on yahay markuu rabana duu ku fasaxayaana sax de waxa ku jirta waa gacan hoose ama ninka pilotka diyaaradda kiciya noqo ama ninka dhulka xaaqa maxaa lagu shaqeeyaa waa shaqaalo waa income ama salary ruuxii si dhaba laabta u dhigtee ammaantii dhamow dhudiyay macaan la isdhaafsan jiray jacaylkii dhisnaa dhowr iyo tobnaad madhadu ahaa jacaylkan uu dhuumanaya muxuu ahaa talow xaguu galay markaas waxaan ka fikiraa 50 years anniversary anu naftarkaygu gooni baan qoyska uga hadlaa waxaan balaangareeyey 50 years anniversary sanad guuradii kontonaad ee guurka qofkoo 20 ku guursaday gabdhaha ama dhowr iyo 20 ilaa ma 70 qofkii jira marka waxaan ka fikiray sidee baan u gaadhaa anoo qoys leh reer leh jacayl ku nool sideen 70 u gaadhaa qurbuhu waa qalaadinu how qoyskanaga aduma qurbaha waa qalaadinu qoyskanaga aduma markii la isqoomanin waa halbahaba qoodu baxa qalinka iyo buuga go horto wax qaban lahaa
waa qaraacahanowba hadkiyo gahanka qab waa qaraacahan uba had gangah lagu qabtaa oo jeelka loo qaadaadi higoon wax qaban karayn intaan laga qooma mahaynon qasaara dhicin talaada iga qaata Soomaaliyeey isqaabo